بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الإيمان كلمة waxaan ka duubayaa ayaamahan sidaad ogtihiin baraha bulshada iyo qalabka warbaahinta waxaa aad loo wadwaday magaalada xamar arrin ka bilaabatay oo ah dadka jirkiisa in lagu ciyaaro oo wax laga bedelo waliba dumarka barnaamij suuqgeyn loogu talagalay ayaa baraha bulshada aad ugu jira oo la leeyahay gabdhaha bishmahooda ayaa lagu waaweyneynaya camankoodii baa wax laga bedelayaa iyo wejigoodii baa lagu qurxinayaa xataa mararka qaarkood la leeyahay baryihii baa lagu yaryaraynayaa muruqyadii kaleoo jirkaa lagu yaryaraynayaa waxaasi horta waa nasiib darro. maanta dadkii islaamka ahaa oo soomaalida ahaa oo dhallinyarada ahaa meeshii la rabay maanta inay ka fekeraan wixii naftooda adduun iyo aakhiro danta ay ugu jidho iyo maslaxadooda iyo ummadooda in dib loogu noqdo casru jaahiligii dhaqanka gaalada kuwa weliba ugu liita oo ugu akhlaaq xun in qurux la moodo in wanaag la moodo dib loogu laabtaa waa nasiib darro. walaalayaalow ilaahay ka cabsada. acmaasha noocaasi shareecadeenna booskay ka taagan tahay u malayn maayo qof jaahila inuu jiro jaahilka ah inuu jiro. acmaal muxarama wey, waa acmaal lacanada lagu mutaysanayo, waa camal shaytaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu nisaa wuxuu inoo ku sheegay shaydaanku waxyaalaha dadka uu amrayo inay ka mid tahay abuurtii ilaahay u abuuray qofka inay bedelaan. walaa aamurannahum falaa yugayirunna khalqa allah. amar baan siinayaa buu yidhi shaydaanku, markaase abuurtii sidii ilaahay u abuuray ayay wax ka bedelayaan. horta amarkaa waxa bixiyey waa hawaa'u nafsu iyo shaydaan qofkii adeecana haddee shareecada meeshuu ka joogo waad ogtihiin. midda labaad, nebigeennu waa lacnaday calayhi salaatu wasalaam. xadiiskii saxiixeynka bukhaari muslim ay soo saareen cabdullaahi ibni mascuud lacana allaahu alwaashimaati waalmustawshimaati waalnaamisaati والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. إلهي لعنذي هكو دعضو نبيغو لعنذي عليه الصلاة والسلام دمركا جيركو ذا وحكا بدله أما ميشا انتي جيحان وحكو شبين هذا بشنتي با وحلقو دريا لجيحيا ولبورينيا وحاوي وشمكيو سليسيا وي. dadka waxaa samaynaya iyo kuwa samaynaya iyo kuwa lagu samaynayo intaba malcuuniin weeye. nebigu waa lacnaday calayhi salaatu wasalaam. kuwa maxaanku yidhaahdaayey sunnayaalkooda jarjarah oo xiirxiirah iyagoo qurux raadinaya iyagana lacnada la wadaagaan. kuwa maxaanku yidhahda ilkahooda hadda waxaan arkayay dad laleeyahay ilkaha waxaa loogu samaynayaa magar. ilkihii ilaahay u abuuray oo wax ceeba aan lahayn ayaa magar lagu samaynaya, la fool xumaynaya ama fanax baa loo yeelaya, dhexdooda baa la banaynaya. iyagana nebigu waa lacnaday calayhi salaatu wasalaam. lacnad ilaahayna waa ku dhacaysa. nebigu xadiiskaa wuxuu ku khatimay almughayiraati khalqa allaah, waa kuwa ilaahay abuurtiisii bedelaya. sideeda qof walba sidii marka hore ilaahay u abuuray si ka qurux badan oo loo bedeli karaa wax kastoo lagu sameeyaa ma jidho. qofka haddii ceeb dadka kale aan lahayn uu leeyahay waa loo ogolyahay inuu iska zuuliyo. ilig siyaada baa ka laadlaada, buraa meel kaga taalla, dhaawac baa gaaray oo laga hagaajinayaa. maxaanku idhaahdaayey wixii ceeb ahoo haddii dadka kale aanu la wadaagin oo abuurtii ilaahay oo caadiga ah dheeraad ka ah qofku inuu iska zuuliyo oo iska jiro waa loo ogolyahay. amaa qofka sidii ilaahay u abuuray inuu wax ka bedelo oo yidhaahdo qurux baan raadinaya, nahyiga adag iyo lacnadu arrintay ku soo arooreen taa wey. war walaalayaalo waxaa hala joojiyo. waa marka koowaade waa diin la-aan horta, oo waad arkaysaana qofkii waxaa sameeya iyo midka lagu samaynayaaba labaduba malcuuniin weeye. waa mare waa israaf, shaydaan lagu adeecayo, xoolihii lagu ciyaarayo. allah subxaanahu wa tacala qur-aanka waatuu ina kaga xarimay iyo sunnada nebiga waatuu ina kaga xarimay xooluhu meelaysan mudnayn maxaanku idhaahdaayey inaan lagu bixin. walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaatiin wa kaana shaytaanu lirabbihi kafuura. qofka xoolaha ku bixiya waxaan shareecadu ogolayn iyo waxaanu waxba ka faa'iidayn shaydaanka isagu waa walaalo, waa shaydaan qofkaasi. waa marka labaad saddexaade
waa akhlaaq xumo oo qofku abuurtii ilaahay u abuuray ayuusan aaminsanayn wuxuu ka dhigan yahay qof leh ilaahayoo sidaad ii abuurtay si fiican ma ahayn wax ka fiican baan raadinaya qurux baad aadan ii abuurin baan raadinaya abuurtii ilaahay u abuuray qof iskala weynaaday oo yasaya oo maxaan ku ka kibraya weeye waa liidnimo tii ugu dambaysay qof walbana mar horaa culimmada iyo dadka aqoon-yahanada ay ka hadlaan qofka haddii caddaan ilaahay ka dhigo haddii maarin ilaahay ka dhigo haddii madow ilaahay ka dhigo sida qofka ilaahay u abuuray ayaa hadba quruxdiisa ay tahay qofkii is yidhaahda abuurtii ilaahay wax ka bedel qurux siyaadsan maye bal waa isfool xumaynay dhinaca kale dowladda xil baa saaran arrinta hadda xamar bay ka bilaabatay xil baa saaran waxa la midkaa meelaha lagu samaynayo oo dadka jirkoodii lagu ciyaarayo oo dhaqaalaha laga urursanayo waa in ay joojisaa dowladdu meeday wasaaraddii cadaaladii arrimaha diinta meeday wasaaraddii caafimaadka xaggee ka dhaceen hay-adihii shalay gudniin aan wax dhiba gabadha u lahayn oo meel qarsoon harag yar laga taabanayay oo gabadha aan waxba gaarsiinayn milyaaraadka dollar ku bixinayay oo qaylinayay aaway maanta gabdhihii jirkoodii baa la jarjaraya baryahoodii baa la jarjaraya murqahoodii baa la jarjaraya aaway mase waxa weeye tan shaqadoodii maaha tan dan kalaa gashay xaqiiqadu sidaa weeye gabdha difaaci mayne waxa weeye dan kale ayaa tan gashay oo la difaacay war ilaahay ha laga cabsado subxaanahu wa tacaala dowladdu iyo wasaarada hawshaas ay qusaysa xamar waa inay joojiyaan waxa noocaas oo kale ah mafsadada afraad oo arrintaas ay leedahay waxa weeye nin ajnabi ka ah ayaa naagihii wejigoodii iyo jirkoodii faraynaya xaggee bay ku banaanaysa arrintaas ninkan laleeyahay meelahaasu ka yimid waxa kan baan soo bartay wax daran buu soo bartay wax ummadda anfacaya ma soo baran dalka waa in laga qabtaa waa dembiile wax lacnada lagu mudanayo oo ijraamu waddanka keenay waddankii waa in laga qabtaa ninkaas dowladdu waa inay ka qabataa haddaan isaga la qaban boqolaal kale oo dhaqamo xunxun oo kale oo ka daran kan wada ayaa inoo imaanaya oo waddankii fasaadinaya war walaalayaalow soomaaliyay war ilaahay ha loo noqdo war awal bayna fawdadii iyo maxaan ku kala qaybsankii iyo dowlad jalaycii aynu maara u la'ayn haddaan ku darsano diin la'aan iyo akhlaaq la'aan xaggee arrintu maxay noqonaysa wax inoo harayaa markaa ma jiraan walaalayaalow ilaahay ha loo toobad keeno ilaahay ha laga cabsado dhaqamada noocaas oo kale ah ha laga waantoobo gabdhaha muslimiinta waxaan leeyahay weliba gabdhaha soomaalida ah ilaahay baa qurux idin siiyey caalamka waxaa layidhaha gabdhaha soomaalidu waa gabdhaha ugu quruxda badan anigu waxaan ka dhegaystay warkaas nin brofesor ah masar maraan ka dhiganaynay barnaamijka daraasaat alculya nin brofesor oo leh gabdhaha markaliya soomaalida gabdhahooda qurux gaaraa ilaahay siiyey midab maariinah oo qurux badan oo maxaan isku toosan jir isku toosan isku habaysan oo aan kala dhaardheerayn ayaa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala war gabdhaha soomaaliyeedow war quruxdii ilaahay idin siiya ha ku ciyaarin war quruxdii ilaahay idin siiya ilaahay uga shukri naqa subxaanahu wa tacaala war dembiilayaal mujrimiin ah oo gaalada kuwa ugu xun dhaqankoodii soo qaatay war yaana idin khaldin oo diintiina iyo dadnimadiina yaana idin burburin oo adduun iyo aakhiraba yaana idin dhaafin ilaahay kaga cabsada gabdhaha awal waxaan dhibta inuu ku hayay gabdha jirkoodii caddaynaya oo midabkii caadiga ilaahay u abuuray la dagaalamaya kuwaasba awal maara loola'ah oo cudurrada ka dhashay iyo qurunka iyo foolxumada maara loola'ah kuwaana waa sidii oo kale cid allaale ciddii isku dayda jirkii ilaahay abuuray inay wax ka beddelaan intaasoo cudur bay jirka gelinayaan waraysa dhakhaatiirta cudurro aan qaarkood laga dawoobin ayay sabab ugu noqonayaan jirkii inuu ku dhaco kansar inuu ku dhacaa laga yaaba xajiin baa ku dhacaysa intaasoo cudurro xun baa ku dhacaysa maxaa yeelay jirkii waxaan ka mid ahayn bay gelinayaan ee rabaan inay ku khasbaan mar kale waxaan leeyahay ilaahay ha loo noqdo dhaqamada noocaasoo kale ah ilaahay ha looga toobad keeno hana la joojiyo wabillahi tawfiiq sala allahuma calaa maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin